waa arday aragga la oo u dhegtaagaya cashar uu bixinayo macallin aysan arkaynin. halkani waa iskuulka Albasiir, waana mid ka mid ah iskuulada dadka aragga la ee magaalada Muqdisho. iskuulka waxaa la furay 2011 bishii February 8-deeda. iskuulka waa iskuul ardaydii hadda dufcaddii saddexaad ee ka qalin jabisay misana dufcaddii afraad ee hadda fadhido sanadkan aan rajeynayno 2019 inay ka qalin jabiyaan iyo 2020 marka alxamdulillah waa iskuul non profit oo faa'iido laga raadinaynin iskuul community maadaama dawladdii aynan iskuul aynan sameynin oo dadka aragga la dhigtaan. marka laga reebo tiro yar maamul macallin iyo arday dadka halkan jooga cidina isma aragto, haddana waxaa jira dareen ka dhaxeeya oo rabbaani ah oo suurtagal ka dhigaya inay isku fahmaan nolosha. waxbarashada iyo nolosha kale ee caadiga ahna si toos ah ayay ugu socotaa. ardaydan waxay wax ku bartaan fartan oo loo yaqaano farta Braille-ka oo loogu talagalay in ay wax ku bartaan dadka aragga la. waxayna rajeynayaan mustaqbalka in ay noqdaan dadkii dalkan samata bixin lahaa oo noqon lahaa macallimiintiisa iyo hoggaankiisaba. Team Horton. Yes. W. D. Sorry. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وحب عن هاي واحد قراء ورخلوينك كله مال أو في عن أو أنت كثير في عن waxbarashadeedu way fiican tahay. macallimiinta aad iyo aad baan isku fahamnaa. wax dhib leh ma jiro. wax walba 100% bay u socdaan. My name is Hassan Mahad Noor. I was born in Somalia, especially at Mogadishu. I would like to be a good teacher. maamulaha iskuulkan ayaa fariin u diray xukuumadda taasoo ah in aan far lagu taagin dadka aragga la marka ay timaado xaalad amni. dadkan aragga la iyo dadkan naafada guud ahaan waxaan u sheegayaa in ay yihiin dad iyaga lamid ah misana dhinaca amniga haddii oo la yiraahdo qof baa wax geysatay aragga la ambi kale naafa ah inaan loo qaban because qof walbo Soomaaliya waxay geysato iyada loo qabsanaya. marka inaan la isku judge gareen ummadda Soomaaliyeed la wada sinaado wixii jakina la wada maro laakiin aanan wax discrimination lagu sameynin dadkan Soomaaliyeed oo naafada ah seen u dareemin inay dadka ka gaar ahayn. dadka aragga la sanadkan imtixaankii dugsiyada sare ee dawladda waxaa u fariistay 28 arday taasoo ah tallaabo ay horey u qaadeen, balse mushkiladda jirta ayaa ah in dawladdu aysan wax qorshe ah ka lahayn waxbarashadooda marka laga yimaado hay'adaha gacanta ku haya noloshooda sida ay ii sheegeen. Maxamuud Soofay, Shabeelle TV, Muqdisho.